agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiinta cisbitaalada gaarka loo leeyahay. Shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd in loo qaybiyo cisbitaalada gaarka ah habraac lagula dagaalamayo xumada daran ee maalmihii u dambeeyay dalka ka jirta. Mas'uuliyiinta cisbitaalada gaarka loo leeyahay oo halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay ayaa geestooda waxa ay ka warbixiyeen xaaladda xumadan iyo sida ay ula tacaalaan. agaasimaha guud Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa gabagabadii kulankan hadal u jeediyay mas'uuliyiinta iyo mulkiilayaasha cisbitaalada gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale dhakhaatiirta waxaana hadalladiisii iyo dardaarankii uu u jeediyay kamid ahaa rabbil caalamiin dhammaan hospitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda bay halkan isugu yimi madaxda wasaaradda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii maanta kulankeenani wuxuu ahaa kulan aanu isugu yeedhnay cisbitaalada la tacaalaya xawaaladan emergency-ga aynu ku jirno ee xumadan si wasaaradda iyo cisbitaalada gaar ahaan cisbitaalada private-ka ahi ay iskaga wareystaan xaaladan jirta. laba arrin ayaa aad u muhiima. kow in cisbitaalada maanta lagala hadlo oo lagala munaaqishoodo oo lagala discuss gareeyo guideline ay wasaaraddu ay soo rogtay oo ay soo daabacday muddo ka soo shaqeynayso guideline-kaasa sidii cisbitaalada loogu qaybin lahaa si dhinaca daaweynta iyo dhinaca bukaanka habka loo maamulayo iyo habka loo daaweynayo oo nidaam isku mid noqdo cisbitaaladu isku nidaam ay u daweeyaan. waxa muuqatay in si habaqlaa uu socday qaabka loo daaweynayo cisbitaalba guideline goonidiisa u isticmaalayay, laakiin iminka wixii ka dambeeya waxaynu wada isticmaali doonaa module-ka ama guideline-ka ay wasaaraddu ay soo rogtay oo public iyo private ba aynu wada isticmaali doono. maaha wax ay waa wax standard ah oo dunida oo dhan daaweynta xanuunkan lagu isticmaalo wasaaradduna ay ku hagaajisay oo ku u diyaarisay si ku habboon contextkeena iyo environment-keena kaas oo patientadu imika wixii ka dambeeya nidaam wanaagsan oo dhammaystiran oo la isla wada socdo lagu daaweyn doono. waxaa kaloon maanta marka guideline-kan laga discuss gareeyo laydiin qaybiyo laydin siiyo waxaa kaloon iyadana idiin sheegaya in berri haddii aan la yidhaha cisbitaalada private-ka iyo kuwa public-gaaba tababar loo qabanayo. tababarkaasoo ah tababar lagu tababarayo xumadan iminka sida loo maareeyo. marka case management training ayaa berri dhici doona oo wasaaraddu ay qabanaysaa oo laydinku soo casuumo dhakhaatiirtiina hawshan gacanta ku haysa ay ka soo qaybgeli karaan tababarkaana inaad ka soo qayb gashaan baan private ahaan yaan rajaynaynaa. cisbitaalada aan iman waxaan ku dhiirigelinaynaa inay shirarka wasaaradda ay ka soo qayb galaan. intiina timidna waan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta aad la leediin wasaaradda horumarinta caafimaadka. shirkuna wuu inoo furan yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.